kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey Soomaalida iyo caalamka oo kale shanta TV aad ka daawataan qodobada warkeenana waxaa kamid ah qarax dhimasho iyo dhaawac sababay oo ka dhacay magaalada Muqdisho kaasi oo dad shacab ah uu wax ka soo gaadhay Xildhibaan Xaadoole oo ka hadlay deegaanada ay ka xoreeyeen kooxda argagixisada Al-Shabaab qodobada kale warkeenana waxaa kamid ah Ra'iisul Wasaare Xamse oo ka degay magaalada Jigjiga iyadoo si heer sare ah loogu soo dhaweeyay magaaladaasi Jigjiga haddaba booqashada Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre maxay ku salaysan tahay wararkeena ayaad kaga bogan doontaan qodobadaas iyo kuwa kale oo intaasi ka faahfaahsan ayaad warkeena ku maqli doontaan fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe baleelkana furo si aad ula socotid wararka iyo warbixinadan halkan soo gelino aynu ku bilowno wararkeena qarax dhaawac iyo dhimasho sababay ayaa ka dhacay caawa magaalada Muqdisho ugu yaraan 5 qof ayaa ku geeriyootay tiro kalena dhaawacyo ayaa ka soo gaadhay qarax miino oo caawa ka dhacay xaafadda Ceel Qalow ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir goobjoogayaal ayaa warbaahinta u sheegay dadka uu soo gaadhay khasaaro ay dhammaantood yihiin shacab halkaasi marayay wadada ayaa ah mid mashquul badan muuqaal iyo sawirro laga soo qaaday goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa muujinaya in khasaaraha ugu badan uu gaadhay dad la socday ugu yaraan 2 mooto bajaaj ah oo qaraxaasi uu haleelay dhaawacyada dadka aan waxba galabsanin ayaa loola cararay isbitaalka magaalada Muqdisho lama yaqaano cidda uu ahaa bartilmaameedka qaraxaasi hay'adaha ammaanka dowladda Soomaaliya weli wax faahfaahin ah kamaysan bixinin khasaaraha ka dhashay qaraxaasi iyo cidda uu ahaa bartilmaameedka qaraxaas kooxda argagixisada ayaa fulisa qaraxyada iyo dilalka ka socda dalka waxaana xusid mudan in gobolada koonfurta iyo bartamaha dalka inta ay ka joogaan uu hadda ka socdo kacdoon bulsho iyo cudud milatari oo la doonayo in lagu soo afjaro kooxdan argagixisada dhibaatooyin badan ku haysa dalka iyo dadka Soomaaliyeed daba qaraxaasi iyo khasaarahaasi wixii faahfaahin ee kale kusoo bira wararkeena dambe ayaad kaga bogan doontaan haatan aynu fiirino Xildhibaan Xaadoole oo ka hadlay deegaanadii ay maanta ka qabsadeen kooxda argagixisada ciidamada milatariga Soomaaliya ayaa maanta kooxda argagixisada ka qabsaday deegaano badan oo ku teedsan dhanka webiga Shabeelle ee mara degmada Balcad ciidamada ayaa caawa galay tuulooyin badan oo hoos taga magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle goobaha laga xoreeyay kooxdan argagixisada waxaa ka mid ah buundadii ugu muhiimsaneyd ee isku socodkooda ee Xambal Xildhibaan Cusmaan Xaadoole oo horey u ahaa sarkaal milatari ayaa hogaaminaya howlgallada ka socda deegaanada dhaca inta u dhaxaysa Balcad iyo Jowhar ilaa iyo xuduudda Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed deegaanada ay ka mid yihiin Jamceejo Misra Maqdas iyo Baardheere ayaa looga xoreeyay howlgal uu hogaaminayay Xildhibaan Xaadoole waxaana ummadda u sheegaynaa goobaha maanta laga xoreeyay waxaa ka mid ah buundada muhiimka ahayd ee Xambal halkan waxay marin u ahayd cadowga ayuu yidhi Xildhibaan Xaadoole wuxuuna intaasi ku sii daray dadka ku nool deegaanadaasi wayba la yaaban yihiin ciidamada dowladda annaga oo kaashanayna ciidamada is-abaabulay ee deegaanka waxaa noo suurta gashay inaan qabanno buundada halaq mareenka ah dhulkaas oo dhan muhiim ayuu u ahaa kooxdan argagixisada sidoo kale ciidamada dowladda ayaa la sheegayaa inay qabteen maalmihii uu howlgal ku socday in ka badan 30 dagaalame oo ka tirsan kooxdan argagixisada sida ay sheegayaan qaar ka mid ah saraakiisha ammaanka ee ku sugan aaggaasi saraakiil ay ka mid yihiin Yaasiin Geedi gudoomiyaha degmada Kaaraan Abshir Kaaraan gudoomiye Maxamed Deeq Geedow iyo mas'uuliin iyo saraakiil kale ayaa Xildhibaan Xaadoole ku weelinaya howlgalkan kada kooxdan argagixisada ayaa hadda u muuqda kuwa nafla caarida dhibaateynaya dadka shacabka ee ku nool meelaha miyiga iyo tuulooyinka ay iyagu ku sugan yihiin iyagoo hadda cabsi weyn ka qaba ciidamada dowladda iyo dadka is-abaabule ee ka hor yimid kaasi oo caqabad weyn ku noqday haatanna Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa gaadhay magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta gaadhay magaalada Jigjiga ee xarunta ismaamulka Soomaalida ee dalkaasi Itoobiya
halkaasi oo si diiran loogu soo dhoweeyey. Xamse iyo wafdigu hogaaminaya ayaa kasoo kicitimay magaalada Addis Ababa, halkaasi oo uga qayb galay shirka sanadlaha ee madasha Tana, kaasoo looga hadlayay arrimaha Afrika. Ra'iisul wasaaraha ayaa waxaa garoonka Wiilwaal ku soo dhoweeyey madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar iyo mas'uuliyiin kale, iyadoo kadib loo galbiyey dhanka madaxtooyada maamulka Soomaalida. Labada mas'uul ayaa wada hadallo gaar ah ku yeelan doona dhismaha xarunta ismaamulkaasi, sida ay inoo xaqiijiyeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay. Sidoo kale waxaa la filayaa in wada hadallada intooda badan diiradda lagu saarayo amniga iyo la dagaalanka kooxda argagixisada ah, gaar ahaan dagaalka Al-shabaab oo dhowaan ka fulisay gudaha dowlad deegaanka Soomaalida. Waa booqashadii ugu horeysay uu Xamse Cabdi Barre ku tago magaalada Jigjiga tan iyo markii loo magacaabay xilka ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya, waxayna magaaladani ka mid tahay meelaha sida weyn looga soo dhoweeyey magacaabistii ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. Si kastaba, ra'iisul wasaare Xamse ayaa noqonaya mas'uulkii labaad ee Soomaaliya ee booqda magaalada Jigjiga, waxaana uga sii horreeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo xilhayntiisii hore booqasho ku tegay magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka, xilligaasi uu madaxweyne ka ahaa madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Cabdi Maxamuud Cumar. Qodobkaas ayaa warkeena ugu dambeeyey. Sidaas iyo nabadgelyo.